Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ku soo dhawow kanaalka dhakhtarkaaga. Muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa cudurka adduunka qabsaday ee COVID-19 ama coronavirus. Casharkani ma ahan mid talo ah ama warbixin cusub ee kasoo korortay cudurka coronavirus. Waa cashar keliya aad ku baranaysid cudurkan, waxyaabaha sababay, astaamihiisa iyo qalabka lagu baaro cudurkani. Marka keliya waa barasho muuqaalka xiga ayaan kaga hadli doonaa talooyin iyo sida looga hortago cudurka. Marka cudurkani coronavirus waxaa la ogaaday ama la baaray markii ugu horeysay 1960kii. Marka coronavirus waa cudur aad u halis ah, wuxuuna ka mid yahay fayrasyada ku dhaco RNA ama waxyaabaha loo yaqaan RNA viruses. Waxayna ku badan yihiin fiidmeerta, laakiin waxaa laga heli karaa sidoo kale shimbiro badan iyo xayawaano kale. Waxaa la iskugu gudbiyaa cudurkani zoonotic oo ah cudurrada xayawaanada ka soo gudba una soo gudba dadka. Cudurradaas ayaa waxaa loo yaqaanaa zoonotic diseases. Qaabkaasna ayaa la iskugu gudbiyaa. Ka hortagga cudurkani waxaa looga hortagaa siyaabo badan. Waxaa ka mid ah xirashada maaskaro caafimaad ah, inaad wejiga ku xiratid maaskaro caafimaad ah. Number 2, gacmaha oo si joogto ah lagu dhaqo biyo iyo saabuun. Number 3, karkarinta cuntooyinka kala duwan. Number 4, ka fogow goobaha bulshada ku badan tahay. Haddii aad 4tan waxyaabo samaysid, waad ka hortagi kartaa cudurka. Astaamaha ama calaamadaha cudurka. Cudurkani astaamihiisa ama calaamadihiisa waxaa ka mid ah inaad isku aragtid qandho iyo madax xanuun iyo sidoo kale neefsasho adag. Sidoo kale waxaa ka mid ah calaamadihiisa qufac qallalan iyo cunno xanuun. 4taas astaamo ayaad isku arki kartaa markaad cudurku kugu dhaco. Marka waxaad is weydiinaysaa cudurkani coronavirus ama COVID-19 siduu jirka u saameeyaa. Qaabka uu jirka u saameeyo ayaa ah in uu isticmaalo spikes oo ah waxyaabaha soo taagan ee aad u jeedaan. Spikeskaas uu ku weeraro unugyada respiratory system ama habdhiska neef-mareenka, gaar ahaan unugyada lagu magacaabo cells type 2 alveolar cells type 2 oo sanbabaha ku jiraan. Unugyada sanbabaha ayaa ka kooban 2 qaybood, qayb lagu magacaabo alveolar cells type 1 iyo qayb kale lagu magacaabo alveolar cells type 2. Marka cudurkani wuxuu saameeyaa alveolar cells type 2. Coronavirus wuxuu ku dhacaa habdhiska hawo-mareenka ama neef-mareenka, wuxuuna ku gudbaa taabashada, hindhisada iyo qufaca. Waxaa jiro incubation period oo ah muddo huuriska cudurka. Qofka cudurka uu qabaa laakiin lagama arkayo wax calaamad ah. Muddadaasi waa 5 cisho ilaa 14 cisho. Dhakhaatiirta ku takhasusay cudurrada faafo waxay ku qiyaaseen halkii qof inuu gudbi karo ilaa 4 qof, taas oo sababayso inuu cudurka noqdo pandemic oo adduunka dhan ku fido. Coronavirus marmarka qaar wuxuu sababaa cudurro halis ah oo aad u badan, sida waxaa ka mid ah tusaale ahaan pneumonia oo loo yaqaan af Soomaali ahaan qaarjeex. Waa cudur aad u halis ah oo ku dhaca sanbabada, wuxuuna sababaa caabuq ku yimaada sanbabada iyada oo sanbabada biyo ka buuxsamaan halka hawada gal lahayd oo biyo buux dhaafiyaan oo qofka ku adkaanayso inuu neefsado. Marka qalabka lagu baaro ayaa ah dunida horumartay waxay isticmaashaa waxa loo yaqaan RT-PCR oo loo soo gaabiyay real time polymerase chain reaction. Waa qalab lagu baaro cudurkani coronavirus. RT-PCR ama real time polymerase chain reaction waa nidaam laboratory ah oo loo isticmaalo in lagu baaro cudurka coronavirus iyada oo qofka dhacaya laga soo qaadayo afka ama sanka. Mashiinka marka real time polymerase chain reaction wuxuu isticmaalaa polymerase iyo protease oo ah chemicals ku shaqeeyo oo viruska wax koobi camal ah ka sameynayo, taas oo keenaysa in qofka la ogaado inuu qofka yahay positive ama negative. Marka chemicalskaas waxay fududeynayaan in si dhaqsi ah jawaabta lagu soo saaro. Haddii la haysanin RT-PCR real time polymerase chain reaction, qofka waxaa laga qaadi karaa X-ray ama CT scan, waxaana lagu arki karaa waxyaabo cadcadaan ah oo ground glass opacity lahayo. Waxyaabahaas cadcadaanka marka waxay kasoo muuqan karaan bilateral oo ah labada dhinac ee sanbabka,
sidoo kale waxaa jira astaamo oo laboratory arki karo marka qofka cudurka ku dhaco. waxaa ka mid ah qofka inuu arko in unugyada cadcad ee jirka ama white blood cellska ay hoos u dhacaan sida leukocyteska lagu soo saaro. muuqaalkani halkaas ayuu ku egyahay. haddii aad ka heshay like saar, haddii aad wax ka faa'iiday ku soo bir kanaalka, lana wadaag asxaabtaada sidii wax ugu faa'iidaystaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.